dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabto iska aadi karta ma aha maya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya jamhuuriyad la yiraahdo billah wa kafaa billah kusoo dhawaada daabaryaan muuqaal hor leh oo aan kaga hayo gudaha Soomaaliya waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacay hadaba xurguf siyaasadeed oo soo kala dhaxgalay maamul goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hormuudka ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud hadaba xurguftin oo soo cusboonaatay ama urdanka ah maxay salka ku haysaa hadaba dani muxuu ka aaruuday muxuu sarraale ka ahayn uu yirwaan goonugo ugu dhawaaqay goonugoosa sida jamhuuriyadda iskay madax banaanida magacowday ee Somaliland hadaba dhawaan ayay ahayd shir ay isugu yimaadeen maamul goboleedyada shirkaas uu furay mudane Xasan Sheekh Maxamuud shirkaasi ayaa waxaa lagu gorfeynay ama lagu gogol xaadayay wadaaga dalka haddii ay noqoto dekedaha Soomaaliya haddii ay noqoto airportyada haddii ay noqoto wax walba canshuurta ka soo baxda dalka gudihiisa hadaba maamul goboleedka Puntland oo hormuudka ka yahay Sayid Cabdullaahi Dani ayaa arrintan ka biyadiiday isla markaasoo raalli ka noqon ama uusan ka noqon raalli si loo wadaagi lahaa kheyraadka dalka taasi ayuu ku sifeeyay in waxaa ka horeysa in la ansixiyo ama dastuurka la dhameystiro deedna saas ayaa lagu wadaagi karaa kheyraadka dalka hadaba Dani ayaa waxa ku andacoonayo uu leeyahay anigu maamulkaygu uu isku filan yahay kheyraadkiisa iyo dhaqaalihiisa isku filan yahay mana awoodi karayo in kheyraadkayga aan soo wareejiyo ama haday noqoto canshuuraha ay noqoto dekada iyo airportyada hadaba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan hadalkaasi ka hadlay isagoo si cara leh u canaantay Sayid Cabdullaahi Dani oo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland hadaba xurguftan siyaasadeed ayaa salka waxay ku haysaa kheyraad wadaaga hadaba maamul goboleedka Puntland xilligan diyaar ma u tahay inay goonigoosad noqoto ee isku magacowdo goonigoosad ma isku filan tahay kheyraad ahaan iyo dakhli ahaan iyo wax walba siyaasad ahaan ma isku filan tahay iyadoo aan wada ognahay maamul goboleedyada Soomaaliya in dowladda federaalka ay gacanta ku hayso isla markaana dhaqaale miisaaniyad ay ku qabto sanad walba iyo bil walba haddii ay noqoto Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug iyo Somaliland sidoo marar qaarba kheyraadka loo wadaajiyo hadaba Sayid Cabdullaahi Dani muku sahan yahay inuu jamhuuriyad isku magacaabo oo ka madax banaan Soomaali inteedii kale taas kale ma aaminsan muwaadin in maamul goboleedyada Soomaaliya oo cidil aysan marnaba ka tanaasuli karin ama ay ka goosan karin dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama ay tahay hab federalism ah ay dadku federaaloobeen ay ku federaaloobeen isugu yimaadeen federaal ay ku noqdeen hadaba fadlan haddii aad ka soo channelka kala barasho subscribe like share comment aad ma daawashada waan kaaga mahadcelinaya